السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وحبايبي في الله وأحمد إيو درس عصب درسيgan إن شاء الله ما تحو كسارسن yahay sidee baad feelasha ama sawiraha ama malafooyin computer kugu jiro aad u qarin kartaa adigoo program soo download gareynin programne u baahnanin marka fikradan waxay kaa caawinaysaa maanta computerkaada dad badan kula isticmaalaya kasoo qaad walaalkaada familigaada ama asxaabtaada computer kula isticmaalaan adigana sawiro muhiim ah ama feelal muhiim ah kugu jiro kasoo qaad shaqada ama feelal adiga aad diyaarisay wax kale u diyaarisay in aad qarisid soo qof kale kaaga arkin hadda computerka lagu isticmaalayo marka insha Allah fikradan aad ayay u fiican tahay marka sharax aan sii gudubno marka aad doonaysid inaad failkan ama sawirkan aad qarisid caadi ahaan marka isticmaalaysid nidaamka Windows 7 sidaan u sameynayno aad u sameyn kartaa sidoo kale nidaamka Windows 8 sidaan oo ku shaqeynaysa laakiin Windows 8 fikrad aad uga fiican oo ugu fudud ayuu leeyahay marka insha Allah failkan inaan qarino aan isku dayaynaa waxaan taabanaa kali failkan ku dhufanayna dhinaca midig midda ugu hooseysa imaanaynaa kadib waxaan eegnaa hidden kadib okay waxaa arkaysaa inuu failkii isqariyay sidoo kale markaan sawirka qarinayno waxaan tagaynaa meesha ugu hooseyso okay aan ku dhufanaynaa sidoo kale hidden okay sawirkan sidoo kale uu isqariyay marka sidee adiga kusoo saaraysaa hadda maanta doo saaxiibkaada ama walaalkaada computerka fadhiisto meeshaan sawir kuma arkaayo ama failka aad qarisay arki maayo asiga mana ogo inaad wax qarisay ama inaad computer wax laga qariyay asiga ma ogaan karo taas daraadeed sidii adigu soo ceshanaysaa waxaad tagaysaa calaamadda Windows kadib control panel ka tagaysaa waxaad ku dhufanaysaa folder midda labaad aad ku dhufanaysaa u dhaxayso kor kadib xagan waxaad arkaysaa hidden files and folders marka xagan waxa ku qoran don't show waxaad taabanaysaa calaamadda kali oo show aad ku dhufanaysaa waxaad dhahaysaa kadib okay waxaad arkaysaa failka iyo sawirka aad qarisay in ay mar kale ku soo laabteen marka sidaan hor u sheegnay marka isticmaalaysid Windows 7 iyo 8 sidaan way ku shaqeynayaan laakiin marka isticmaalaysid Windows adiga 8 aad ayuu ugu sii fudud yahay lino adiga systemku sii horumaray marka way sii fududeeyaan marka waxaan taabanaynaa folder cusub aan sameynaynaa haddaan doonayno inaan folderkan xaggan ku jiro aan qarino marka isticmaalayno systemka Windows 8 kali waxaan tagaynaa xaggan waxaan sawirkan ku dhufanaynaa calaamad sida hore ku soconaa don't show sida aad si fiican u aragtiin marka hadda failkan ilan qariyaan doonaa waxaan isticmaalaa Windows 8 lana Windows 7 sidaan hore u sheegnay kaasoo ku shaqeynaa sidoo kale Windows 8 sida wadada hore amarna ku shaqeynaa laakiin marka isticmaalaysid Windows 8 khaas ahaan fikradan aad sameynaysid aad ay u si fududahay dhinacan kale marka folder ku dhufanaynaa kili xagana tagaysaa waxa arkaysaa inuu failkii isqariyay adigoo dhinac midig taawanin adiga oo hidden files and folder meesha tagin kili ku dhufanaysaa waxa arkaysaa inuu failka isqariyay fail xagan kuma jiro hadduu sawir yahay sidoo kale uu isqarinaa marka sidee ku soo ceshanaysaa qasama inaad tagtid Windows ama control panel xagana taabanaysaa kili options sidoo kale meeshaan tagaynaa oo labaad kili waxaan taabanaynaa hidden files and folders waxaan dhahaynaa sidoo kale show okay waxaad arkaysaa inuu failkii kuu soo baxay adiga hadda isticmaalaysid Windows 8 ama Windows 7 labadaba way ku shaqeynayaan marka insha Allah waxaan jeclaan lahaa inaan darsigan la fahmay oona laga faa'iidaystay oo walaalkiin Axmed hanaga iloowina like subscribe iyo share waa inoo cashir dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka haddaan delete gareeyo ama saxda aan ka saaro Facebook oo soo laabana waxaan dhahaa kali refresh waxaa arkaysaa inuu Facebookaada sidii hore uu ku soo laabtay